sida ay ku dhawaaqday qaramada midoobay saacada uun ka hor 40 tahriibayaal ayaa la la'ayay halka 6 meyd ahna la helay kadib markii ay doonta ay saarnaayeen ay jasiiradda Lampedusa koonfurta Talyaaniga ay ku degtay sida uu sheegay wakiilka hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxoontiga Gerard Cardol doontan ayaa isniintii ka ambabaxday xeebaha dalka Tunisia waxaana saarna 56 qof oo kala dhashay dalalka Ivory Coast iyo Gambia iyo waliba Cameroon waxaanu taas ku daray in doontu markii ay socotay dhowr saacadood ay biyuhu halakeeyeen taas oo keentay ugu dambeyntii inay doontu ku degto jasiiradda Lampedusa ilaa imika 6 meyd ayaa la helay halka 40 kalena la la'yahay Talyaaniga ayaana badbaadiyay 10 qof oo tahriibayaal oo isugu jira 4 haween iyo 6 rag ah sida laga soo xigtay warbaahinta Talyaaniga wararku waxay intaasi ku darayaan in baddo kacsan ay soo galeen tahriibayaashu kadibna dadka qaar ka mid ah ay ka daateen doontan oo ahayd mid buux dhaafa dhanka kalena koox tahriibayaal oo 40 qof ka kooban ayaa ka soo ambabaxay koonfurta Tunisia gaar ahaan magaalada Safaqis waxayna soo gaadheen jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga wararka kale Talyaaniga laga helayana waxay sheegayaan in 213 tahriibayaal ay gaadheen Talyaaniga waxaana la geeyay xarunta soo dhaweynta tahriibayaasha ee Lampedusa sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga 8743 qof ayaa gaadhay Talyaaniga sanadkan aynu ku jirno ee bilowga